boorka college-ka sidaad u aragtaan xarunta agoonta waa geedaha ka dhex baxay college-ka magaciisana waxaa la yidhahdaa geed talaal ama geed hindi sidii Soomaalidu u taqaano halkaana waa beerta college-ka Imaamu Sacuud waxaa ka dhex baxaya waa yaanyo oo lagu abuuray hadda waxaana weli ku socota faliin kaasna waa solarka system solar oo koronto siiya college solar siiya koronto guriga siiya معلمينتي ومعلمين كم معلمين wax ka barto college مهندي meeshaan waa jikadii college-ka lagu kariyo cuntada kana waa store-kii bakhaarka keydka college-ka this one براكتي كولج بالله من الشيطان الرجيم ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن ظهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم بعد طبعا علينا لما ورانا صوب قضي كسر الأول يعني نسش هذا الجيل وكسر هميرة يجوا مفيد بعد ما هذا إن شاء الله باش أنا أقول ماش أيتامتا أو ويل يكبر واحد ويجي ماش واحد ساعة ويلشة وعايز برضه يهز بيتن يسجل ويل قبلها بناك خريطان قبل عدد من قروها تضوع لها لكم هذا قالوا في تضوعات ما كان شواتين كل بناك يعني كان دروسته يا عرضت واحد يسوي سكول حاجة برشة تكسر فلسطين إلى يوكوال بريكتان عدد أبو بقول يلقى بريكتان سكول بريكتان هو كرنا قيمته هيكاد بيكشران أو هذا تصور بيكشران قبلها أو كله ماشي كواعد يعني بناء كلام كله هالشيء الوصية أو بيها وقعتان ويلش من ماشي أيوة بسيب القرآن صدق أو تيك عن تيان ماشي عن القرآن كان دليل صوت قعتان دليل كلام قعتان القرآن كان ما شاء الله من حرشوا وفي عند التعليم تقول ما لك هو أول مركز كسب ولا أقول بالواسطة إن شاء الله يلا كل ده ندلل له مركز الواد فترة مشهورة على السؤال weynayno aan maaragtay ku darno xarumo kaleeto ardo badan oo gobolka joogta oo agoona lagu soo daro marka waxaan ka codsanaynaa inaad sida maaragtay si waafi ah inaad su-aalahaas uga fakartaan jawaabo rasmiina aad siisaan oo ku salaysan run iyo daacad waa ardadii college-ka ibnu Mascuud markaan waxay ku sugan yihiin dugsiga quraanka wajiyo farxad leh wax ka muuqdo insha Allah
waxay noqonayaan qadaa aad iyo aad u wanaagsan qadadaas oo uu baxshay mas-uulka cabdicasiis sheekh maxamed geedi dhulkii loo gaday xamuurta jamciyadda imaam nawowi xarunta daryeelka agoonta mudug ee funded by Mahmoud Foundation USA. waxaa maanta farxad ii ah inaan hortaaganahay ardadii iskuulka al-shacab oo laga bilaabo galaaska brimo ilaa dugsi sare maanta halkan daquurka ay taagan yihiin waxaan soo marnay marxalad kala duwan ayaa iskuulkan soo maray waqti waxaa jirtay uu iskuulkan uu ahaa fikir uu ahaa oo rag walaalo qurbaha jooga uu ku dhashay muhiimaduna ay ahayd in ilmaha gobolkan ku nool oo run ahaantii dayac badan uu soo maray dhibaatada maanta gobolkan ka taagan aad ogtihiinna ay u sabab tahay dayacii hore oo maaragtay la dayacay dadkii hore da'yartii hore waxbarasho aan fursad u helin aan maanta arkayno maaragtay dhibaatooyinka ay keentay ayaa walaalihii waqtigaas joogay waxay ku fakareen in iskuulkan al-shacab la asaaso alxamdulilah ilaahay wixii ilaahay dartiis loo qabto ilaahay waa maaragtay garab galaa juhdi dheer iyo dadaal badan kadibna maanta resultiga u jeednaa ilaa cabdullaahi shire iyo maxamed cali iyo ninkii kale xasan kaashe waana soo gaarsiiyey akhbaartiina dhallinyaradii markii meeshaas akhbaarta u sheegana runtii aad iyo aad bay u jeclaysteen inay bil walbaba ay idiin qoraan dhaqaale joogta dadka doolarka soo qaaday dadka lixaadkoodii u dhammaystirnayn oo haddana shaqaysanahay oo dadaalhayana tihiin arrintaas dadka aad iyo aad bay ugu damqadeen kuwa xoog leh oo lixdooda lixaad leh baa aan shaqaysanayn amase ummaddii wixii hayay isagoo shaqaysanay doonaan shalay waxaan tagnay meesha la yidhahdo bandiiradle agoon ku jirta iyo saddex waxaan sii marnay ilaa 5-6 isbaaro lixdooda lixaad qaba ilaahay samac iyo basar iyo adimo iyo gacmo uu siiyey oo u adeegsanaya ummaddii islaamka inay ku dhibaan oo qudaaca marka aad iyo aad baan runtii macnaha ilaahay qadartiisa mar walba waa in raalli lagu noqdo weeye laakiin waxaa aad iyo aad dadkaas dhallinyarada ay akhbaartiina ay gaartay ay ugu damqadeen inaad adintoo lixaadkiina aysan dhammaystirin haddana saddex marka walaalaha aad ku dadaalaysaan haddana inaad shaqaysataan oo wax kasbataan. My name is Abubakar Maalim Abdulle. I'm now 29 years old. I was 10 years when I received the care from Imam Nawawi Orphanage Center. And I finished my secondary school in 2003 at Imam Shafi'i Secondary School. Then I joined university, especially Banat University Faculty of Education, Biochemistry Department.
after I finished my bachelor degree, I started working as a teacher. Especially I was teaching biology and chemistry from different schools, such as Imam Shafi'i. Also, I started a few months ago my master degree from Kampala University, public health. Now I finished first semester from that university. I believe that this college changed my life, and I believe everyone who supported in this college, may Allah provide him, and I want to thank everyone who supported this college or this center, and I would like to request anyone or everyone, especially those living outside of the country, to give us support for this college. السلام عليكم مركز أنا كعلي مركز ما شاء الله إمام النووي غير الله سي بقول الله هذا ما يلوي بكره واحد حصص مركز قيبتي حقه أنا وجوه مركز ماشي حالك أنا ضاوعة أو أنا لوهي حتى بسعون كريم درت الله دويت الله وحتى واحد يمري صلوت هاف كذا يمري أنت معنا وجالس لك ياسي محلك أنت كرسي حرقنا كجامنا واحد جي في الجنة مركز لما تجي تحت المال نسحبك يكون جاب هذا كور ماشي اللي قدر يجري ماشي استار اللي يجري اللي يجري محمد عبد إنه هاي عملنا سفي عنه نكاس ما كرتر نوعها ماشي يقول ويجري إلا يمرك يدبر حياته إجازيسي أنت الدبد اللي جاي اللي سوى داوي أنا روحي يقول داي وحكينا ما إليه بين سمانا اللي يملي مع عرب اللي يملي أنا صلاة هذا مدوق أوي جدا وظروف تدرك جدا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مقعي وبشير علي أحمد وحن كم إذا أردت كوسو بربارتي كلجك أم كلجة مدرسة أم معهد إمام النووي لرعاية الأيتام وكيا له دقبل هذا جارهان أفريكان فيلج هذا الدأد يدو والله واتي يستحجر كلجة واحد صوق لي أنا الدأد يتهي سجال سنة واحد كوسو بلاوي أم واحد ماشي عن كوسو بلاوي وحبر شيء هذا تمهيدي جاه وأنا اللي كوسو بلاوي ألف بيتها أم ألف بأت اللي يقصوا بلاوي وحنا يقصوا بلا غير لازم يسوي عبد القادر هذا فرتة فدية وحبرشة هذا كان كم رأيه إلا كل جد وحنا قصوا جاري دكسي قد حق فصل كيس الجداد كدب دكسي قد حق وحنا كنا ما يستي سكول كدب مركو سكول بدلي أو أنت لقى ساري إمام النووي كدب هذا دكسي ساري وحنا كنا ما يستي مدرسة الإمام الشافعي هذا الشقة ما قبته أنا اللي واحد هيكلي أرضي دكتة بلاسم يونيفرسيتي فاكولتي أوف فارماسي حاصل ميه وواحد هيستيلي ولسه واحد هيسنجلان هاي مستقبل كمركب واحد رجينا إلهي دو جالسيو أرضي وحي اللي رجينا كله إنه وحبرشيت سيدا ما يسترى أما الدكريسة وكجارو فكرة ده مركب عدي الحرمين أما عنده إمام النووي لأنتيس ماشى معهد كأجانتا لأنتيس دي على هيد واحد سلاي كله واحد كم من دقن لهيد إلهي قدرتيس waxaan ka mid noqon lahayd dadka loo yaqaan street child ama dadkan kuleysyaasha ama caruurta jidka saxata ilaahay ugu horreeyay ama tusay inaan college-kaas ka mid noqdo aqoonta ku soo barto wax ka barata waxaan markaa mahadnaq u jeedinayaa in alla inta gacan ka geysatay barbaarinteeda iyo in aan wax soo barto iyo in aan ka mid noqdo qof maanta mustaqbalkiisa ama wadada wanaagsan iyo wadada xun kala garan kara waxaan markaa codsi u jeedinayaa dhammaan in alla inta أب وحلا وحي أجنسية وحلا وحي هيئات جار ولا هي أما مدة والمدة تهنا قطع مثل سارعي يو جار هاندت كسومالي ذا أيوة بحسن كرا إلهي وحسي إن أقونتاس أنا جانا لمي ذا أما نقول لي إذا ما تذكر كسوان إنه وحلا قبتان سي مستقبل كونا سنة أول باديان صوبت مستقبل كودا وحكو حرام مستقبل كذلك السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اسمي عبد الفتاح إسحاق إبراهيم. التحقت بمركز الإمام النووي وكان عمري آنذاك 12 سنة والآن عمري 31. ختمت فيه القرآن وختمت أيضا المرحلة الابتدائية والمتوسطة. بعدها التحقت معهد محمد بن نصر المروزي وبعد ذلك